السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وضيال دلهان تيمبا كسر هذا برنامج كأني فنك يسوعان توانو يالا وكسر عسونا ضوضياش دقيمة هلا بركة وقول هذا الهايس كبدان له إسلام مركانا لو قلت عليه هاي مرتدا يا هلا بوران برنامج شدوي كلامو جي ميساوي هنا عوابون كردين هيا واكما وابوان داير إسلام مركانا مليه سانو وان كنت منيو إذن كان أنو هوين هاي inaad ka heli doontaan soo dhawow abwaan aad baad mahadsan tahay adiga madnaanta leh dhammaan adigoon kaa bilaabayo maamulka iyo shaqaalaha muqbayahan caalamiga ee Star waan salaamaya sidoo kale daawadayaasha iga daawanaya dhammaan daafaha dunidana iyagana waxaan leeyahay habeen barqadeed jazakallahu khayr baan kulahay sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad u gaarsiisay salaantii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan daafaha caalamka isla markaana in daawanaysa Star TV abwaan barnaamijku wuxuu ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawow nagu soo dhawow waxaad si dala soo dhawow horta aad baan idinku mahadcelinayaa shukran kulli waa badan yihiin waxaan idinku soo talagalay laakiin soo kolba sidii u kala muhiimsan yihiin haddii la qadaro inoo waqtigan ay ilaalinayaan aad iyo aad waanu kaa filaynay abwaan xoogaa haddii aan isbaro abwaanka iyo daawadayaasha telefishinka caalamiga ah Star horta anigu magac ahaan Maxamed Haroon Ibrahim laakiin si dadka badankooda waxay yaqaanaan Wardi waxaan ku dhashay magaalada Tan Hargeysa 1 October sanadii 1994 waxaan waxbarashada ka bilaabay isla magaalada Tan Hargeysa sanadii 2000 dugsiga hoose dhexe Future kaasoo isna secondary ku qaatay isla markaas markii aan dhameeyay dugsiga sare waxaan u baxay jaamacadda dalka Uganda iyadoo halkaas ka wado waxbarashada koobaad ama heerka digriga loo yaqaano faculty-ga dhigtaa education waxaan sii dhigtaa physics and mathematics haddana fasax baan ku joogaa sanad dambaa dhiman insha Allah inagoo khayr qabno isku soo noqon doonaa Allah kuu soo fududeeyo cilmiga aad baranaysana ha ka dhiga mid anfac leh oo adiga iyo eheladaada iyo waddankiisa annagaba aan ugu soo noqdo midho dhala abwaan waxa tahay hal abuur caan baxay xilliga kugu horeysay hal abuurnimada muddo marka aan ku qiyaasayo 3 sano iyo bad horta ayuu baad isku aragtay sideedaba horta suugaantu ama waa la hideystaa hadiya ama waa hibo Ilaahay subhanahu wa ta'ala bixiyo sidoo kale waxa lagu soo daraa inuu qofku baran karo tahidadaha iyo hibada labadaba waan filayaa inay iswataano aabahay Haroon Ibrahim waa gabiya abtiga Cabdullaahi Haji Maxamed Xamdullahna waa gabiya iyagoo hideysu waliba xagga abtiga u badan yahay marka labada dhinac baan anigu badan ka tirnaya intii aanan isku arkin gabayga ka hor ama inaan maasoodana kulli waan taageeri jiray ama waan xiiseyn jiray kolba suugaanta qaababkeeda kala duwan ama gabay ha noqoto ama geeraar ha noqoto ama hees ha noqoto intaba marka taas keentay kulli inay ugu dhalisay inaan annabal isku dayo inaan wax la buuro muddo 3 sano iyo bad laga joogo anoo magaalada Hargeysa joogayaan sameeyay wixii ugu horeeyay aan u leeyahay kadibna waayadii aan qurbaha u baxay wadu heshanaysayo kugu khasbaysaa inaad intaadii ka hore ka badan aad waxa weeyaan isku daydid taasina waxa weeyaan waxaan filayaa inay iyaduna sii horumarisay صح abwaan ma ka xasuusan kartaa wixii kugu horeeyay ama maansidii kugu horeysay ee isu ka qabatinta wallahi xaqiiqatan hadaan waxa qorin oo aanad dhigaal ku sameeynin way adagtay inaad xasuusato waxaan filayaa inaan hadda maskaxda ku haynin aanan halkan ku soo qoranin waa waxay u wanaagsan tahay in had iyo jeer wixii muhiim ah ama aad leedahay isbedel baa ku iman kara aad iska xifdido oo aad meel adag ku rido waxaan kugu soo dhawaanaynaa oo ku soo durkaynaa oo ku diirsanaynaa oo dhagaha u furanaynaa geeraar ama maansa la yiraahdo Suleekha horta maansadan Suleekha waxaan filayaa inay tahay maansa jiifta waa maansa yar oo kooban waxay ka hadlaysaa jacayl lagu hungoobay
khasaare laga joogo khasaare laga joogo bismillah iyo waxa weeyaan falcelintii الأبوان maxaa noogu bilowda walwada xagga dambe iga qaboobiye xagga dambe ka qabow doonta insha Allah iyo falcelintii ka timi intaba insha Allah kulli marka qurbaha loo baxo waliba dhalinyar leeyahay arday leeyahay waxa weeyaan inta wala sarkayaayo aad wala soo ay sheeganay kadibna wili gabadh waxa weeyaan arrintaas ka dhashamay dumarku way iska boota badan yihiin haygana raali noqdaan la isma dhaame ma halka wanaga garantiina mala way ka daysay oo waxa weeyaan inankii xiriirkiiba loo daciifisayo mala meel kale soo aragtayo ka baad wanaagsan in oran karnaa gaabis baa laga noqon inankii waa iska samray oo waliba haday gaabis un maaha waliba waxay tiri ina kala daayo qof kasta waqti uu leeyahay intii soo qaadanay kadib waxa weeyaan inankiisna waa iska samray waa iska qurbeysna inan kale ayuu bartay baalka nafsiga la yiraahdo waa iska dhib badan yahay inantii uu ku soo celiyay inantii ayuu ku soo celiyay marka inantii isaga la aftiisu gogol muufidiyo mar hadii haweenku gooxaan isagu markii dambe raganimo ma qaato soo kan inanta kala hayaba marka waxay noqotay inuu labada mid ku faraadayo marka tii dambu ansixiyo aan aniguna waxa weeyaan ku taageero aan ku yiri bal waxa weeyaan inantii hore saa ku gashay gabadh loo tashaday marka maasadu waxay tiri in kastoon Suleekhay kugu sooray maanko sadrigayga wehelii suuradaada oo quri kaligeed sunaydoon markii aad ka sikatee samihiya wanaagii aad ku tuurtay sibiqda kalgacaylkii sayda ana leega suulo leega saaray warankeed ku goysiseeda mar hadii sidaydii lagu saaqay hoogtooy sirta nolosha weeyo subax waliba ruux buu siraadan yahay oo cala sulan yahay garo waxaan uga socdaa taas mid kale aan la safanahay oo aan la sabaya caashiqii sirtiisii adigii sabaanka adduunyadu sideedaba maaha saban nagaasho waa golo socdaal oo safar lagu marayo sitimaan la joogee adna saasu faano sadrigaaga taas gali suuradeedu waxay tahay maalmahaad sarreysay taashku uu ku saarnaa sawtaad cirkaasi samadaas maraysay aad moodaysa xalqabeen suldaarka maqan yahay goortaad salaantiyo jacaylkiisa lugtanana joojiyay sacabkii sahan kalena aan diray waxaan uga socdaa taas mid kale aan la safanahay oo aan la sabaya caashiqii sirtiisa adigii sabanka way iska koornay inantaas waxaan ku niri kulli adiga tan bilaabay waa ku kaa mid kale aan la sabaya caashiqii sirtiisa adigii sabanka waxaan leeyahay inantaa wax khayr qabayn ilaahay weydiin isagii iyadii inan kaba inkastoo jacaylku waa markaa hore unahay taa dambe waxaan leenahay iskaga buuqino tii hore wanaageedii iyo waxbaa uga sheekayn waa iga talo هذه واحد كل أبوان وحكم مقتمان صدا إن أنتم مركوا رديع جيستي لما كان هاي هذا وكل يسقي دريا البدايسو دي هايو هدي هذا حويان مركوا هراء تقال قبله سيدك قبله هذا بدرارات كقصلي سيدوشي وين دم قرار كوين ده مساهي سماعي الله يلهش مركوا هو تيبا لسنا هنا تيجي وأنا قاعد أدري adiga tan bilaabay maalmihii deed wanaagga iyo jacaylku inaga dhaxeeyay hadaad sidaas sameeysay oo aad iga dal doorsatay oo aad cid kala soo aragtay taana cid la mid ah soo arkay inaad irta shuufkayga daayo waxa weeyaan waa intii xawalini meelanta waana naxay aad baad ma hadsantahay abwaan al abuurku kale yahay inkastoo noo daal saartay inaad ahayd qof hidaystay iyadoo hal abuurkuba dhamaantii uu hibe eeba yahay hidaysuguna waa nooc ka mid ah oo hibada soo hoosgeliya qof aan hibe ilaahay u siinin waxba ma samayn karo ma jirtaa cid kugu taageertay oo kugu gacansiis wallahi xaqiiqatan markaad kulli horta wax bilaabayso ama waxay saxsan yihiinba ama taageero waxaad ka helaysaa ummadii kugu xeernayd ama ummadii kugu xeernayd waxa weeyaan asxaab lahayd waxa weeyaan ayaa ku oranaysa warde waxaan ma saxsana muddooyinkan dambe waxa weeyaan waxaad arkaysaa ummad badan oo ama magaca hal abuur ha qaadato ama magac kaleba ha qaadato iyadoo wixii lahayn sheeganaysa in wax la isku toostoosiyana maaha wax samayn sax wax isku toostoosiya maaha wax samayn markaba waxaad kala kulmaysaa siday ummaddu u aragto waxaad samaysay
ma wax la soo dhaweeyayba ma wax umadii waxa weeyaan ka iibsamayba mise dee waa waxaad adigu keli ha mise waxaad adigu isku qancisay uun صح oo tidhi wallahi waad samayn kartaaye keliga sacabka tuma kalsoonida lafteeda miyay jirtaan hay ma jirtaan way tahay laakiin se waxaan ahayn dad kalsoonideeda samaysato hadda maanta anu iska aamino maanta wardi libaax baa tahay waxaan ahaynba iibsami mayso laakiin se waxaan ahay inaan sii aamino markaas horumarku yimaado adigoo sii yaqaan shirka tagto aad badan maasan tahay xajira gabal leeyahay dadnimo wad baraarujinaya waxay gelin ku sameynayso maasada dadnimo waa maasa saara waxay soo baxday dabayaaqadii sanadkiina dhaafay 2015 kulley marka dalka ka maqan tahay waxyaabo badan baa ku muuqanaya wadan jacaylkii baa imanaya dhibaatooyinka dalkii ka jira aad arkaysaa hadday qabyaalad tahay hadday qaad tahay hadday tahriib tahay hadday ummadii aan isku xirnayn tahay haddii dhaqan dooris tahay haddii diinka fogaasho tahay waxyaabahaas oo dhan way ku muuqanayaan marka kulley waxa weeyaan marka aad hadal caadiya isticmaasho oo waxaaga tiraab yahay iyo marka tix isticmaashana way kala duwan tahay oo dadkiibay waxa way kala geli og tahay marka waxaan siri bal adiguna intaas alla ajar baha kuugu qoray ka qayb qaado sida umadaada inta ku haboon iyo qaybta kaaga soo qaybtay aad ugu baraarujin lahayd maasada waxay ku bilaabantay adduunyada daar nagaasho korkeedana lagu dakeeyo sida doontaba la yeelo qofkii doqona u haysta walee dagal raaxa maaha dhib baa lagu daahay jaalle allaha daa'ima ka yeelay rugtaas nafta lagu diyaarsho haddaad iska daanshameerto macnaha lagu duugay seegto dabaalata meelo leexsan wixii alla diiday yeesho ogow laba malag indoodka dartaa laba qalin la siiyey wixii dambi aad samaysay daqiiqad barkeed qoray abwantaayna duristaan ogow laba malag indoodka dartaa laba qalin la siiyey wixii dambi aad samaysay daqiiqad barkeed qorayo de ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu iska kaa sameeyey kumuu sii daynine adduunyadan waxa weeyaan waxbuu ku keenay sabab baa jirta ka dambeysay abuurtaankaaga الله سبحانه وتعالى دل على عندنا مويدي وين كسميه ما حد يسوي عليه سما يلاحظه بدك كلي الدنيا لو تشوفه وين لو عباديستو سيد الله سبحانه وتعالى إن فرينا عقبته مركا وحي أتصميصور إن مو هناك هالنقطان أما حمان هالنقطاني وحوين لبضع ملك بقرية أو وحوين دي وهي جناه كربها كاسها وهو لبضع ملك إن دوت قدرت هلا بقل النسي وحي دم بيعتصميص دقيقة بركة قرية addoon iil baa dambeeya xisaab adag baa diyaarsan intaad xumo soo dilaashay waxaa daabacay macbuudka haddaad istiraa ka doodna dibnahaaga ayaa la joojin afkaaga ayaa daboolmi dubkaaga markhaati oogi oo qofka hadduu isiraahdo aakhira muran ma murmi karo dubkaaga markhaati oogi yowma naktumu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim ilaahay subxaana wa tacaala maalintan intaan afka joojino xubnihiibaa waxa weeyaan hadalkii bilaabay odhanaya sidaasaa jirta markaa meel loo murmaayo ma jirto ka joog dumarow ka baaqso wixii duminaya xeerka xishoodka marway ku doogso dulqaadka ka yeel hugaaga ka daawajigaa caddaynta dawooyinka aan naxaynin ka diira labeenta guudka maxaad inan yahay duruucda u iibsan midkii duntiisa la daalacda waxa ku aasan maxaad ugu deeqi wiilna inuu daawada jirkaaga bilaash daymad u ahaato maxaad damal yahow surwaalka walaal uga ridi dibkaaga samow dabadaa u muujin maxaad kaga dayan sakhraanka ku nool dublin iyo jigaago maxaad dhaantaa dameerka intaad daaqaysa qaadka intuu daankaagu buuxo dukaashaday geedka baasi miyaana dareemin waali inaad dawaqdoo khafiiftay mirqaanku markuu ku daaro sidii qof dagaal ku raagay dareero dhididku qooyo qolooyinka mirqaamaad inooga waxa weeyaan cilmi badan taas waxay gudintuuba ku doortay markay daabiyo af leeday waxaad adiguna dux leeday dalaayad intay akhlaaqdu u tahay midda doo hadhaysa naftaada dalaalimaysa oo gudin aan daabkeedii afkeedii isku jirin waxba ma qabato haddaad daabkoo keliya haysatid ama aad afkoo keliya haysatid waxba ma tarto waa inay labadu isku guda galaan oo labadu waxa weeyaan markaasay gudin noqotaa iyo wax qabata markay daabiyo af leeday waxaad adiguna dux leeday dalaayad intay akhlaaqdu u tahay midda doo hadhaysa naftaada dalaalimaysa hadduu qofku akhlaaqda ka tago oo xishoodka ka tago oo dadnimada ka tago macno ma laha qofnimadii uu ka baxay oo dee dhinac kaloo xayawaankaabuu ku biiraya ayo waxa weeyaan iyaduna qayb kaloo jirtaa marka dadnimada iyo qofnimadu waxay ku jirtaa intuu qofku xishoodka leeyahay waa akhlaaqda leeyahay edaabta leeyahay bulshooy dadnimada ha dhaafin u soco si ka duwan dugaaga ku dhaqan diintaada suuban ka yeelo hoggaan daliilka ka dhowr deelqaaf kalaamka ha durin aadmiga ilaahay
u diid carabkana xumaanta jeclow nebiga iyo dirkiisa necbow gaalka iyo duyuuska rogee daba dhili furaaya durbaanka ibliis ha raacin waxbuu dagayaa ka fiirso dhulkaas qool baa u daadsan haddaanad digtoon ahaanin wuxuu kugu dari xertiisa hadhow dala qodhan cadaabta ilaah ku dabooli naarta gufeeye docdaas bannaane haddaan daraf kale ka eego mankaas laynagu dirsooco midkaas dunjigeenna saafa intuu qaba diifta raagtay intuu dambaskaas hawaaro walle waxaan nahay darliita haddaad u malaysa daanish inuu ingiriisi dawiyey sidii digri ugu ruclayso midkaagana aad dulayso waxaad ku jirtaa agaadam gumaysi dahsoon ismoogi afkaaga markaad dar yeesho markaad daranyada ka dhowrto ayaa dunidaas ka qaybtay oo af soomaaligi weeyaanoo dee ummadeenniba imka horumarka waxay aragtay in luuqado kale waxa weeyaan lagu hadlo ha aqoon-yahankeeni wuxuu haystaa inaanu aqoon-yahanba noqonayn ilaa uu ama ingiriisi isticmaalo weliba dee taasaabay nagu sii badane waxaynu nahay dad Soomaaliyeed oo iska ingiriisiyoobay ayaynu nahay oo waad arkaysaa dee imanka waxaynu hadhay in luuqadii caadiga aynu isticmaalaynay ka dhiganadii oo markay suuqa joogno ingiriisi ku hadalno magaalada markaad u fiirsatid marka baraha bulshadu ay ku kulmaan adeegtidii ma Facebook ha noqoto ama meel kale ha noqotee Kenya ay aqoon-yahan haaya jaamacad dhigtayba waxa weeyaan wuxuu soo dhigayaa in yaro ingiriisi waaraad ingiriisiga soo dhigtay dadkan aad wax ka iibinaysaa iyo dadkan aad wax u sheegaysaa iyo dadkan aad baraarujinaysaa waa yaqaan luuqadana ma u dhashay dee waxa weeyaan odayaal gaboobay baa jooga oo haday doonaan isticmaalo dad waaweyn ha noqoto caruur yar oo Soomaaligu taqaana jirto oo ingiriisigan waaweynada uu dee jaamacadaha ku dhigatay aan aqoonin oo kula fahmaynin marka cid baraarujinaysa haddaad luuqadan teedii ahayn u isticmaasho dee macno weyn soo kordhin mayso haddaan aanu gabaydeeda Portuguese ku sameeyo Soomaaliga wax ka iibin karaa dee taas un ba keenaysa markaas waxa weeyaan waxa muhiim ah in qof kasta afkiisa ku dhaato markaad afkaaga ku dhaadato ummadda kalena dee waxa weeyaan dhexdooda wax ka tahay Soomaali un baa tahay ingiriisi waxa weeyaan sharaf ku yeelan maysid carabna sharaf ku yeelan maysid waxaad afkaaga markaad wanaajiso markaad horumariso suugaantaada markaad ayuu adduunkuna ku qadarinaya dee qof af iyo dhaqan laba tahay ha gufeeye docdaas bannaane haddaan daraf kale ka eego qabyaalada dulinka beerta qabyaalada doogta reebta qabyaalada damaqda boogta midaas dawladnimada wiiqda midaas laba daris dhexdooda ka ogta dagaal sokeeye halka damileed kuulkeeda ayaad adigii dabkeeda ku biirisay dogobyo qiiqay maxay ku turto duruusa aqoontaad muddo ku daashay intuu wali darawal ku yay ajuuska ilkii bardaatay dugaas cilmi dacalka saynin ninkii dhamaay aqoon-yahanka ahaa ee cilmiga soo dhigtay waxa weeyaan professorka ahaa ee doctorka ahaa ee waxa magisterka ahaa ayuunba imanaya oo halkii wax kale laga sugayay ayuunbu halkii ka waxmayd ka bilaabaya halkii uu dadka wacyi gelin lahaa iyo xanuunkii uu daweyn lahaa ayuu isagu noqonaya mid fidiya marka taasina waa mid adoo daalaa dhacaya adoo ummad yahay daciifa adoo dawo aanad haysan adoo dirqi hela xareeda adoo darbi jiif ku buuxo adoo ubaxaagi daatay badweyntaas xud ku dooxday galbeed qola dawarsanayso darxuma iyo hiif ku nooshay intii hadhay cidi danaynin ninkaasaa daba ordayso daruurtu markay u hoorto codkaaga markuu ku daaqa nimcadii dahabkii macaanka markuu dhab durduurta dhayda siyaasiga dayn dhankaaga maxaad ugu dhiman dartiisa intaad dugsanaysa reerka qabiil wax ku dooranayso intaad ka didaysa nuurka kitaabkaas daahir dhaafay wuxuu doofaar walaaqay dimuqraadiyad ku sheegay dastuurku yahay la raaco intaad danahaaga moogtay midkaas dabinada xidhaaya midkaas dalka iibinaya hantida midka daaligaya midka diihal cunaya damaaciga aan xishoonin midkaas ku kaadiraya ku diirsada hadimadaada midkaas dhiigaagi daadsay midkaas ku dabree ku ciilay midkaas dooxida ku seexshay sidii doon kugu tallaabay intaad darajada surayso inaad hirar doog la gaadho inaad degto guri barwaaqo dadkaygu habaniyeysi gufeeye docdaas bannaane haddaan daraf kale ka eego wuxuu dundumaba aboor ku sameeyay markuu dadaalay uliya diirkeeda ahaaday waxaad adna dayaxa hibsan markaad isku duubni keento oo bulshadu haddaanay isku hal qof ahayn meel magaalo gacmooda jooga wax ku qabtaan Soomaaliya hohay da'yaray is-aamin inaad duufaan la jeertay inaad tahay daad ordaaya inaad tahay danab dhacaya u sheeg duqeydaas gabooday ee ilaa iyo duhurkii maandhe dalkeenna cadaan baneeyay kursay ku dulleersanaya damiirkaagana ku dhiiri inaad wax daweyn karayso dhalinyarteeni oday siyaasi iyo 80 sanadood siyaasadda kusoo dhex jiray baynu durbaantumaynaa aduu waxaad noqonaysaa madaxweynaha berri xilman madaxweynaha noqonaya haddaan 30 jirkayga madaxweyne noqon waayo 40 jirkayga madaxweyne noqon waayo 50 jirkayga ilaa 50 jirkayna waa dhalinyaro
xaqi dhalinyaradu muu doonaya war xaqi dhalinyarada doonine adduunyada ragga waxa weeyaan madaxweynayaasha ama wax dooriya waa dhalinyaro 25 jir ilaa waxa weeyaan intii dhalinyarnimada iyo awoodda aad leedahay markaas haw afduubnaan ninkaas adigu intood iskaashataan oo dhalinyaro noqotaan oo aqoon-yahan noqotaan hogaamiye sidina Nelson Mandela isagoo yar siyaasadda soo biro jambiga doona wax ka soo qabsaday ku dhex gaboobo sidii si maskax fiiyo u leey miyanu dhici karin may way jiri karaan laakiin taas oo markaad adoo damiirka ka dhaadhiciso aadiya haddana aanu iskaba dhaadhicin waxan baa tahay dee cidi ii sheegi mayso soo qabanayso kadibna i gelin mayso meesha waa in horta aanu marka hore dhalinyaro isku aragtay in iyagu wax daweyn karaan inay wax bedeli karaan xikmaddu wuxuu tiraahdaa haddii caanaha nustaato barkii dambe uun la toosi waxaan aniguna ku duubay wacdiya deelaydan maaso dardaarana ku dhameeyay dabuubaha kugu qulaamshay dhalaan wali daqaqamay sidiisa ku daadahayay dabayshu halkay banaysay ku awday naxaasi daamur daloolada ka juqaalay nal iyo ku daaray laambad dawgii ku tusmeeyay guusha darkii libintana ku geeyay hadaad isku dooranayso oo intaas hadaan ku yiri wax kale oo oran lahaa ma jirto waxaad adu ka yeelaysaa hadaad qaadanaysa hadaad diinaysaba adiga ay ku jirtaa weeyaan كل كبير واحد كم مقتنع عيب أنا اللي تابنا يو قبلها يساسترادي يو أنا شحي وأنا بسنان ونطلع يو لا هي أنا قديكو لما أنطي آمين دمانتي كوي كتامنا قاطع إسلام مركانا ربي قنا وأنسحي أيو تابك الشو رجل لفتوله قارسوا الكسكر ديو قارتي ما حير تويو قارقينا وحلا دافي من أركينين dadkeenuna wuxuu ku wanaagsan yahay fahanka luqadda in qofkii uu kusoo gudbinayo afkiisii kugu siinayo iyadoo aan sarbeeb iyo hoskatooriyo toona lahayn oo ereygiyo sidiina soo gaari waxaan mahad gaar u haynaa abwaanada da'da yar imka sida tiknoolajiyada ku jirto iyo xadaaradu isugu barbardhigo oo imka abwaanada hore hadday gabyaan ma baanaan afkaran kara dhalinyarada weli isku tirina damay kul bacidi nool ayuun baa loo gabiyahay iyaguna dadkoodiiba haysteen markaa la fahmeeyay imankana waxa weeyaan dad ummadan cusub hadii uu dhibaatada haysatay hadaan waxa weeyaan wax ka tusin macno weyn kordhin mayso waxaan dhibtan tusin aad baad mahadsan tahay abwaan kulli daawadayaashu su'aalo badan bay nooga barteen oo anigu weydiinaa abwaanada لكن كل كلين دي وانا نسركينني وهذا محل قوانيس ورديو سدي شكتورتن 94 وقتي ادو سمر خلايا كانت واني كو حاسه مرتي مسكحديسه كبرقنيس جعيل ولي ما يساركت انا لفتا امك دد waxaan isa kaaga cudur daaray inaan abwaanada iyo fanaaniinta kala kulanay qiso ah aniga ma yaad kale ma yarta xaqata marka la sheego wuxuu yiri hadana khaldan Yusuf Xaaji hadii gabayga uurka oo burkiya armi ka keenin ama walaal xanuun iyo jacayl kugu ijbaaraynin afkum baad ka leedahay tuwaar ma yeeshaan الله إله marka kulli ma oran kara mayano way jiri karaan inkastoo halka wuxuu ka sheegay aadiyad warbaahinayto way jirta ilaa imkana waxaan filayaa sida loogu talagalay xul wasada قول برجيني إن شاء الله بسم الله الكريم أنا لا نقدر كوي قلقل كاجي يفرح هذا كم مش حردك على الأسئلة تذكر دلالة لنا وين نجا جوابتنا وين هاينا يلا صحة خير الله كده بدنا يصير وحلا ياهي سودو قام فرق سودو قاعد رجينا يقول لا تابن كرو إن أقون درنا قبل قال يدا بينو كود بين أقوى درني وهرت واجيرار. أيه. والله كله قيني مركا. ما يحب كله قين معيه. وما تدري هذا لو كله قين ما فهمتي. واحد شيء مدوني كان دمبه. قف سجوا أنا قانتي الهين خصبية. أو ميل أنا نكون أحسنين حتى نخصبه. دكتوركم بحلقة ويدية سوما. هذا ما أنت دو جاس تريد إد كلا كوريسته. دو حكورن دونا جاس حب. waxaan dawadeedii baa inoo lagu sii dhimanay guri marka la dhisanay ninka engineerka baa xilliga weydiiyaa hawl kasta qof baa loo doofaristaa Allah subhanahu wa ta'ala wa kale fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ma diinta noqoto ama meel kale baa noqotay marka umadeeni waxay noqotay ummad dhammaan dhinacyadii kale oo dhan dad u deysay laakiin dhamaantood diinta ka wad fatwada hebelow bartaaya taa ka waran sheekh bal la sugumayay aniga waxa ila tahay ayuu ka bilaabay aniga
waxay ila tahay war adiga oo yaanay kula noqonin cid baa loo daba fadhiistaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu uu soo dejiyo nebigiina culimaa ka dhaxashay heerkii doonaanba ha soo gaadhaan oo waxa weeyaan ilaa imaka dee silsiladaa dheer ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka timi ha ee innaka inoo timi waxay tahay uun midda ay culimadu soo wadeen markaas geeraarkan yare kooban barahan bulshada markii aan dhibaatooyinkaas ku arkay ayaan sameeyey wuxuu yidhi guyaalbaan dibnahaygiiyo afkaygiiba dabooloo dushaasuun ka arkaayay balse caawa dulqaadku way igu soo dib yaraadee dabuubteeda dhagaysta laba duulba dhowaantan diinta waa ku tunteen oo duulimaad la arkaayo dumin bay ku wadaan oo haddii aan laga dayrin oo cid difaacda la waayo mar unbay dardaroori oo daad kusoo geli haykal ninaan saaxiibnahay haykalkaasi maxamed haykal maxamed la yidhaha weeyaan aad baynu salaamna saaxiibka qolo waa da-yar xiiqsan oo hadda daalka maraayo dudaduun ku agmeero dullocdii weli gaadhin balse kaysa dad jiitiyo isku haysta digtoorra dabadood wax la sheegin oo muran unu diyaaro had iyo jeer durdayo maayo ciddii maalin la dooday fikirkooda ku diidaa bidco duudka u saara hadaa tidhaahdi war waxaasi sidaas ma aha bidcoolaa tahay khamiiskaana digreeto madaxweyne ku doortay oo ninkii aan isku duubin dembi weyn u yaqaana inuu kasta baasha laakiin aan dacu dhuuxin inay diintu wanaagiyo dhammaanteedba dabeectay udubkeeda dulqaadiyey marka aada u dan leeday waxu sheeg dar habaabayna ina aad dacwadaada ku dartaa xikmad luuliyo mukhtaar u dahabaytay haddii aad didinaysan iska daysa haboontay tarno saaxiibkii kale ha ninkaas iyo nin kale oo kaysa la yidhaha saddexda ninba marka haddaad markaad wax sheegayso qofkii aad og tahay inaad waxaanu cilmi leedahood u keeni karto ood usoo dhaweyn karto ood cilmiga ka dhaadhicin kartana u sheeg haddii aad adigu bal qofkii siyeeraysa ka waran inaad sidiisaa kaga tagtid baa kuu habboon marka haddii aad didinaysana iska daysa habboon tahay isku soo wada duuba markii aan darsay tooda waxaynay durkiyaan ma ahaan damacoodu iyagoonse dareemin bay dooniyeen quruxdii ku daahnayd miladeenna u yeeleen daldaloolla uu kasoo dusa gaalkii tuugay soo darsadeen waxaa la odhanayaa un waa kuwa culimadiin in la yidhaahdo had iyo jeer ale qof kastaaba uu diinta dhinac ka taagan yahay isla markaana ay isku diin sheeganayaan fariiqooyin badan samaystaan ma la odhan karaa jaha habaabin umadeed baa dhici karta ma kolley marka xaqiiqatan la eego arrimaha guud ee diinta ee caqiidada ah ha inay waxaas saa yihiin oo ilaahi subxaana wa tacaala la caabudo oo nebi maxamed nabigeeni yahay calayhi salaatu wasalaam wax la isku khilaafsan yahay maaha laakiinse waxyaabaha qolooyinka ku khilaafaana lama odhan karo waxa weeyaan asaliyan diinta ayay kusa leeyihiin laakiinse khilaafaadka badanka imaada ee ummadda dhexdooda imaadaa waa khilaafaadka fiqiga ah sidee baa loo weysaystaa iyo soonka waxyaabaha yaroo ku jira iyo xajka iyo dhammaan waxyaabaha fiqiyaadka ayaa laga yaabaa inuu khilaaf ka yimaado khilaafkaasina wuxuu ka yimaadaa fahamka qofka uu leeyahay anuu sidan u fahmo iyo sidaad aduu hooday u fahanto ayuunbaa laba dhinac kale istaagaya oo innakan maqalnay dee hadal waa margi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama aanu joogin oonu lahayn waa sidaas iyo sidaa iyo sidaa ha calayhi salaatu wasalaam asxaabtii baaba dee qaar midba xadiiska uu maqlay uu sidan u tafsiirtay kan kalena sidan u tafsiirtay mid kasta dhinac ka istaagay marka tani dhib culus maaha haddii wixii fiqi yihiin oona caqiidadii qofka dhaawacayn laakiinse markay caqiidada soo gaadho ee lagu yidhaahdo waxa weeyaan arrinaan diinta islaamka ku jirinba ama lagu soo daro ama mid laga saaro markaas weeyaan qolooyinkaasna waxa weeyaan muddooyinka dambe ha soo bataan haddana weli ummadeena Soomaaliyeed si guud uma soo wada gaadhin masha Allah ilaahay xifdiisayna afartaas ma dareeshay ma ka ooday dabaysha sida roobda ay waasan oo degmadii ha qabiyeen barkii ma daweeyay dar labaadkuna waa xeer qolada degdegaysa kaba sii daran oo shaydaan uu dabrado iyagu ahmid damiino aqoontoodu daciiftay diinta aan mid aqoonin aqoontoodu daciifto diinta aan mid aqoonin dastuurkaas qurux dhaafay u diyaarshay macbuudku daartiisaas inta aan ku dul joogna adeega mid duubay ku sheegay هذا القرآن الله سبحانه وتعالى تلاهي وقتي سوى لقى بحر ده فول حمك وين ما جرت وذات كاس ديراني كدقايا عذاب تندري وأفلقاد دلدلو وحنبه الشيء هذا داية ترانا وحين يدب دقاين ولا أنت وضيع حاسي عد عدة دوكسن لين كدقايا دليل هذين وحويان أفكار ترى القلبات قاعدة لهين هل كاسينو كاري لهين markii aan dayay tooda dirirtoodu waxay duqaydaas u abaarteen loogu koobay dagaalka bas inay diracdaasi dogobka sidan yihiin quraanka dugsanaya runta daacadna qaaye ka horjooga dugaaga duqur boob lahaga ayuu ka dambeeyay galbeedku kana diiday xatooyo hal inay ku daraan ama ay dulnimaan waana qoom dawaqo sida dooli yaro duufaan u dhamanaashay daalayo jahwareersan oo dariiqii ka habowsan oo waxay dooniba sheegayo marka aadan la doori rasuulkii dahirnaaya asxaabtii darbanayd soo daliisha tamaandhe doofaarka adida maydhan iyo darwin soo qabsanay hadda tiraan nabi maxamed baa sayri Charles Darwin sidan buu yiri koranaya war adeer Darwin iyo maxaa rasuulka isku kay ag dhigay mayaga laba qof oo isku dhawo la isbarbar dhigi karo oo wax weyn la misayn karaba
allamaan dabranaa baldayo caqligooda doqmahaas dhabu fiirsa dadka ay simayaan afartaas ma dareeshay ma ka ooday dabaysha sida roobda ay waasan oo degmadii ha qabiyay nabarkii ma daweeyay khatim baa u dambeeyay daa'imo ummadayda duuga fiican ku toosiyo dambigoodana dhaaf aamiin dugsiyo xaq xoojiyo dushaas guudka ka yeel ilaahow dagalkayga dawladiisa wanaajiyo daameerahaas soogay dalyowgii muslimiinta taladiisa ku doobiyay u adeega darbaaskii daalimiinta midoobay ilaahow dambaskaas iyo dabaqtiyay ka yeelo ragii meel ku dooriyo dadaalo una heegan daadahaynta kitaabkii sunnadii nabi daahe adoontii ma dulma oo boqorkii dunidu aqbalo ducadeeda degdeg ugu ajiib geerarkaas aamiin allahumma aamiin baynu leenahay xaqiiqatan waa marti miisaan leh isla markaana saameynaysa damiirka qof kasta oo muslim ah ay qof kasta oo ku hadla afka Soomaaliga oo isagu luqadiisii rabbi kugu siiyay hibo inaad ku gaarsiiso malaa dee weli ma dhadhawe waynu caawa dhex dabaalanaynaa inkastoo inaan ka gayoonaynin dee maansooyinkaaga iyo murtada rabiibada kuu siiyey maanse aan anigu xaqiiqatan aada u jecelahay walow aanan anigu mabda-ayga siinaynin dadka ama daawadayaasha telefishinka oon leeyahay the choicekeena ciyaaraysaano qofku isagaa dooqiisa leh maansada hooyo kolley taas malaa ummadda cid diidaysaa ma jirto dhinacyada kale oo dhan waa lagu isku khilaafsan yahay laakiin haddii halkaa soo gaadho war ma laha waa meel la isla wada qaatay maansada hooyo waxaad u iibeysay hooyooyinka Soomaaliyeed hooyooyinka Islaamka qaasatan si gaar ah hooyo Qadar Xaaji Maxamed Xandulle ha maansadan waxay soo baxay 10kii bishii 9aad 2015 maansadani waa maansa masafa ah oo laba dhac ah waxay ku bilaabantay kolley lama koobi karo xaq hooyo leedahay maadiya alla subhanahu wa ta'ala dhamaantood ifkii aakhiraba ku shaf aamin jazaak dhibtayna la soo martay baaban xaween laga cimriga iyo caafimaadka iyo cisiga waa Allah u barakeey aamin dhamaantood halabuur dhamaantii aniga u horeeyo waxaan ahay hormoodoo cidi haybsan mayso hanaankii darwiishkan u soo haadiyaayo hadraawaan sidiisii wuxuu kala hufaayo haradaan gudhaynay iidaan ku haqabaxay aniga haleelo hadhuubkayga daro oo gahayr haybadiisii aniga hagoogto xaye helid yaqaankay hiigsadaan abwaanadu damalkii halkiisii aniga harsanayo haaruun dabuubtii aan wii hambeeyo qaasim bahashiisii ani ii hibeeyo maalintaan haleelaan hubsadaa godkiiso meel hafeefanaysaan dawo ugu helaayo ummad horar cunayaan ugu hiiliyaayo hal dheeriye aftahan baan maskaxaa hantaayo markaan hooy idhaahdaa dhaguu hayin noqdaano hagar laawahaygana ma dhaafsado hunguriyo nin habsoobay maan noqon hawraartiina baayacay hormadaasi bilow hormadaasi bilow iyo hordhacay ahaatee halkan maanta joognana hooyaan nageyso hanuuniye gadaashii iyadaa halbeego uurkeeda hodanka ah sagaal baan u hoyano hami aad u badan iyo culays baan ku hayno hawshii wareerkaa hurinaysa waayo ha ki soo tallaabada heeti socod dhaqaaqdo fool baa la haleesho moodkaa hor yimido hadeertana dhibtaasi wixii halis ka soo maray hilmaansii dhawaaqii hoogii xanuunko halacsigayna aragtay hubaashi mabsuudo hanaqay ka faraxday wejiga hilaacifay sidii dhibtu u soo jirto unbaa markaas saa aynu dhalano unbay hooyay farxaysaa dhibtii iyo wixii naga soo maray hawlaha waxa weeyaan maba xasuusanayso maskaxda ugu ma jirto kuma hadhin intaasun hadimooyinkeenuye lula aan nahayn bay heella noogu keento saqda dhexe habeenkana hurdaday ka toosto horaadkayna siiso maryahayna huwiso aroortiina hees bay huga noogu geliso fariid iyo halyey bay markastaba nahayso nafteedii haddeenana teennaa horrayso ma hawaysan jirin quud ilaa aan ka haagno kama daalin habistii hagagaajinteenno hadhka geliyo waa beri ma habsaami jirino xanuun yari haddii uu maalinina haleelana warwar aan hadhayn baa ku hagoogmi jirayo hareerteenna unbay sida gaadhu heegnid oo dee waxa weeyaan hooyo qofna kama mashquusho oo ma tidhaahdo inanka yar iyo ama inanta yar misuun baan soo wadwaday waa tii uma subax kasta habeen kasta halkii bay wada taagantay maalintan xanuunsana hadalkeeda badaa hooyo waxa weeyaan dharageeda iyo bixeedu labaduba waa keena maalintaan faraxsan way faraxsantay maalintan xanuunsana way nala xanuunsataa waa intaas afartaas bal hubiya haada kale waxay tahay higaadiya la'aanteed hadal lama barteenoo bara hilinka jeexii hidda dhowrta weeyaan hadhac milicdadaysoon harsanayno weeyaan heega baaqsanayno hooraysa weeyaan
hogolnoo da-ayso haraad reebto weeyaan mawluhu hadda ay huga sharafka weeyaan waan haama buuxshe aan hela baltaydee hooyay ammaantaa hubaal koomi mayso xaqaagana hantoo dhigin uuba kama gudaysee hoodii adduunyada guri hodan ku noolo aqal lama huraanaa loo hayaamayaayo hunga weeye tan iyo hoy nagaasho maahee marka aad hoggii iyo u huleesha iilkana hoogiyo ilaahay kaahay jaxiimo halasaha kulkeedii hore ciida ku xiro jannadaas la haybshee loo wada han weyn yahay rabbi kuu haneeyo webiyada is-hoos maraa habaqle i durduuro oo hoobaanta guro oo hadhacaas firdowsi hooskaas ku waraabi aamin waxaan filayaa inaan hooyo hooyada waa lagu wada xasilaayo mar alla markaa hooyo lasoo gaadho adigii guuri isku xisbi baa la noqda ha dee intan maansada koobani maanso wax badan hooyo ka tidhi maaha laakiinse haddana waxaan silhuun bal isku day yaa dee isku dayga laftiisaan ayaan ahayn wax la saashan karo waxaan leenahay hooyooyinkaynu ducaynay hooyooyinka dhimantay allah u naxariisto kuwa noola kor allah ka yeelo markay toodi noqotana si dhib yar oo naxariis leh oo qabow oo macaan rabbiga maciindeneedii uga guto idilkoodna iyo idilka bara naxariista jan ilaahay naga waraabi amiin hooyo macaan waynaga isla qaadan waxaa la yidhi hooyo wanaageeda lama koobi karo hooyaad la noolaan jirtay un adigu intii aanad ha jaamacadda ilaa dhalashadaadii ilaa dhalashadeedii ilaa maalintan tegay ee korsiyo laguguma yeedhi karo ya Alle. may hooyaan anu waxa weeyaan habeen maanaan kala dhihin oo fara ku tiris baan filaya inta aanu kala maqnayn dee inta aan halkaa joogay mooyaane laakiinse intii ka horreysay alla yaxfidik wada noolaada in khayr badan oo kale aamiin insha allah iqrayni soo gaadhni maansada iqra horta waa maanso cilmiga si guud uga warramaysa iyo halka lagu gaadho maanso aqooneed waxay soo baxday bishii afraad ee sanadkii sanadiin hore na dhaaftay 2015 maasooyinku dee waxay u badan yihiin 2015 haa way yaryihiin dee qariban 2015 sii noqotay Ya. radio kolley waxay ahayd muddooyinkii aan xoogaan halkaa joogay oo ay bahashu heshiga noqotay markaan waqti marka jaamacadda tagtida ka timaadid waqtigeeda jirin helaysa. ha dee halkan imaka waxaa jooga bulshadii oo dhan baad la nooshay bulsho saxafiyiinaa jirta oo qaar doctor baa jira oo qaar engineer hayo bulshada wadaadadii iyo bulshadii dhammaantood baad la wada nooshay oo ehelkii iyo xaafadii iyo laakiinse halkaa waa dad aad isku wada meel u socotaan arday uun buugun baa la wada sitaa itixaam baa laga wada sheekeynayaa waxa weeyaan casharka laga wada sheekeynaya ha kala duwanaanshiba meesha jirin marka waa inaad adu kala duwanaanshiyo keentaayo aad kolba meel ku dhufataa mar waxa weeyaan jacaylada iyo warkoodu mar waxa weeyaan hooyo xasuusataayo mar dalkii baaqu dirtaa tiraado war dee arrinkaasi ma wanaagsan inaga daayay marka horta taasaa ku tusaysa in waxa weeyaan sax iqrayni dul istaagi maansada iqri waxay tidhi idirisow dharaartii udgoonow mustafihii waxii lagu ilhaanshay iqra lagu Alayhi bilaabaa salaatu wasalaam. ummadii dhigaalkana ismigee la kowsaday maalintii nabi maxamed lagu soo dejiyay iqra ayana kana ummatu iqra laynoo bixiyay waa ummadii akhriska axmedow rasuulkii ee baaba sheego aayaad qur-aan iyo axaadiis tiraabaa alifina faraayay urursiga daliilada sidaas aawadeedana insaanba sharaftii cilmi bay ku ururtoo ninkii erey ku dheer baa ifka kugu hogaansho ololkiisa baxayaa la iftiinsaday ay aadmigu kulaalaan aakhire lafteedana ilihii fardowsuu ku aroorayayo dhan kastoo la eegaba awal weeye maandhow ninka kaa cilmiga badan adduunka kaaga cilmi badan yahay adduunka isagaad u daba istaagaysa hadduu dhinaca diinta kaaga aqoon badan yahay aakhirada u daba istaagaysa oo marnaba waxa weeyaan qofka cilmi bartay wuxuu doonaba ha noqdee marnaba ma khasaaro markastaba qofka hormoodka ah ee dadka u horeeya isaga la dabagalo aqoontana sideedaba akhris baa u seeso afmiiqana qoraalkii waa ka haga adduunku awoodiisu waa taas uunka kala kaxaysee ninna saartay oogada midna hoos u aastay aynigii ka reebtay ku abaashay tuugsiga qof kasta intuu akhriyin buu leeyahay adduunka waxaa kala kaxeeya afrikaankana dadka caydhaahee waxa weeyaan dhibaatooyinkii dagaalada ka bixi la kala dhigay qolooyinkaas reer galbeedka ee ummaddu u taqaanay in horumar gaadheenna ka dhigay in heerka gaadho waa aqoon iyo waxa weeyaan akhris afmiiqana qoraalkii waa irida guusho amarkiisu waa kaas reer galbeed ugaaskii imaam ka yeeshee uu afduubtay dunidu inankaas reer roosh isticmaalka qalankii adeegsiga kaskiisu ifisiya rasaasi aalad badaha ku quustiya ku iktiraaci karaa indhayaro jabanis amerikan iyo reer yurub dayaxaas ilaysay iyaguna u dhoofeen korkiisay istaageen waxaa uurka jiifiya unugyada jirhkeeniyo wadnahay ogaadeen
anna horumar daayo abidka iyo weligay irbad maan samaynine asaagay wixiisa aqalkayga yaallo anfaacigan cunayo uunsigana kolay tahay waa ammaano reero waxa laga iibshaa alaabtaan lahaay amaha ku bixiyo isticmaalkii maanka Idris oo haysto ruuxaas asqaysanay la adoonsadaanay isticmaalkii maanka Idris oo haysto ruuxaas asqaysanay la adoonsadaanay gumaysigii wali mu tagin qalay wuxuu jiraa maskaxiin si maskaxdu jiraayo fandhicilna noqotay waxaan samaysanay duwa iska yiri waxna waa wax culus oo dee u baahan in waxa weeye waqtigeeda la gaaro horumarkeeda la gaaro waxna waa wax yar oo iska fudud oo aan u baahnayn dee waxa weeyaan in maskaxi hawl badan lagu bixiyo ilaa tiiba inaka la inoo keenaa findhicil baa ugu yar oo waxa weeyaan cid baa soo dejiso cid baa keento halkan baa iyaa naga qodax badan inaga dhir badan marka dhibtaas ay jirtay oo Afrikaanka oo dhan wixii iyaga laga iibsaday oo lacag jaban laga iibsaday baa dib loogu soo celiyay looxaanta laga iibsaday iyagoo wanaagsan oo kuraasiyo qurux badan baa loo soo celiyay macdanto sideedu adag baa laga soo iibiyay dahab baa looga soo sameeyay kadibna iyadoo qaali laga iibiyay waa umada waxeedii dib looga iibinayo haddii inta markaan aadisi amaanayso aduna dib iga iibsato de waa taas un baa jirta alaabtaan lahaaye amaha ku bixiyo isticmaalkii maanka Idris oo haysto ruuxaas asqaysanay la adoonsadaanahay mid agaadam joogo dhalanteed arkaayo ayaan ayaanahay Afrikaan madow iyo Soomaali baan ahay ilbax waxaan u haystaa qabiil loo irkaday iyo aana la isku dilay iyo utun loo ciloobo hadba reer islaam oo amaan xalay ku seexdaan leelkii miraayeen dagaal ogto waa baraalisi ku qaada ilbaxeena iyo sharafteena wax weyn reehbel geesigeena waka shahidkeena ubadkaan u dhidideen aayatiin ka sugayeen isla hadaloolada hadii awoodi doonaa araxdii kuwii aan oofaha ku qaadiyo ubixii dhulkaygii tahriib baa idleeyay ajashi ku waayeen afartii badbaadiyay intii gudubtay baduhuna eegay u liitaan islaamaha cadaankii awiyay u meeraa هادو شرف لك كويلي تو بدعم لي وحنا دبعتها سي مرو صحراء مرو بدها كتب دونتي عذابتها هذا سي كرو لكن سهل كهدو تو ولا ما حاكه دنبيه اي ماشي هله دي وكاسو شقده لقبتها قف كاga شرفت lahaayee hooda ahaayee ama wardi ahaayee qofun baad ka shaqeynaysaa ayuun baad qof meeshii ka tagay ormadeenu imanka sharafeen ugu leeyahay waa la laynayee ila leeyahay waxaas caayda iyo intaas un batay intaas ka sii daran itaal xoog ragayga abaara irari la guriyasamo ugu badan ishinkayga geyn la iyo aroori la oo kayga tiri la edag bay ku xidhan yihiin aroori iyo habeenkana waa oori qaado maalintaan iman bay asaydiisa qaadaan maalinta qaadka la waayo umba madax weer ugu wada duubta qaadka la qabno wax la yiraahdo waxad qaadka ma qabaan iyaga masayigu qabaa ya ila isagu ka maarmi karaadu kuma maarto geedku haduu halka ku yaalo iyo hadii la soo gooyo waa geedii ma geed baa yiraahdaa ay gooyin aniga waa geed laakiin qofka u baahan ee aan ka maarmi karin waa isaga marka waxa weeyaan edag bay ku xidhayeen aroori habeenkana waa oori qaado maalintaan iman bay asaydiisa qaadaan indheer garad kuwaan biday maamulkii ku aaminay way istaahilaanay ma ilaalin xeerkii isku duubnidii dile albaabkii qabiil fure ka aamusatay dantii guud u eedaamay gaargaar ingiriis sidayin England iyo Turkiga ku adeega sheedaan sida ooriyo oo kale oday quraati wada qabo isku ooriyo caytame midba inta xubin kale ku ilaaw xilkii qaran sidii dumar la wada qabo hiblaayo ka shaqeysa fadhiga cusub ee loo soo dhigay isararta cusub ee hiblaayo laga bedelay ayuun baa ragii madaxda haay la doonayeen inuu umada u shaqeeyaan waxa weyn halkan u soo fadhiyeen hebel waa sidan hebelna waa sidan xisbi hebel waa sidan dawladdu waa sidan shalay toolo wixii aan caayay baan marka xilka fadhiistaan inuu dib waxa weeyaan u sameeynaya marka umadan waxa weeyaan inakuna aan ilbaxay baynaho tii hore hebel baa maanta wanaagsan hebel baa iman doona hebel halkii buu ka bilaabay waxa si saxaafada la taabanin xuquuqul insaanka hal la ilaaliyo sharafta dadka sida hal la yiraahdo ayaa maanta oo dhan buu ninka waxa weeyaan madaxda doonaya inuu noqdo mucaaradkii wadaya maalinta halka kursiga kiiba ma ahaba isagaaba ka xirxiris badankii hore marka ummad waxaynu nahay inaguna aan fahmayno innaka dadkiis ma soo bedelaan shakhsiyaadkii magacii hoodun bay soo bedelaan laakiin sa fikirkii la aaminsanaa iyo nooc shaqadu isma soo bedesho imanka adduunyanaha dadkan dawladaha ama xisbiyadan tartama mid kasta siyaasadu degan buu leeyahay ingiriiska kale marka lagu leeyahay xisbiga shaqaalaha xisbiga midagta fog maxay waa dad kala aragtiyo fog oo aan isku iman karin مش معقول عقلي قبل ما جلس إن هبل أنتوا كصباح هبل هاكم كلا قلوا إنه كانوا يسكتوا حوري نبى الحزب أنتوا قلي أنت سكر حركوتها نبى أنتوا حزب قلي وضن كيم حسست أيوميت كلا قلي هذا أنا كيبو كصباح كيه هروك صنعه وريبا ويدي سؤال نين كاغن كل بحزب أنتوا قلي كلا كجورية سيدا بيدت كوا أميني دونا الفكرة ده دي بس بدي شيء هذا ما أنتوا حنا مثلا بريت ولا دي ده كور واتاسون بأجرته حزبيين وحبد موداب وحبد سدح كانوا سكرية لفتوا دم بدأ فردي ما له قفكو
meeshu dinta sakaarku butaga saddex dukaan isku xigo saddexdo biyahaya kaad ka iibsataa waa ku kii kale balca ka deeni hadii ku shil ka wada siinaya wad ka iibsanaysaa tii uma inaga markay haysta sida ooriyo oo kale oday quraati wada qabo isku ooriya caytame midba inta xubin kale ku ilo xilkii qaran ka ambaday dariiqii ixtiraam dad waaweyn eberkeeni waa hore ahsaan la isku fala iyo ka ingegay samaantii aflagaatay diintii ama badan nabiga ilaah baban caaya ka abraaray dhaqankii ka abaaday suugaan murtidii afkayga arrid baan ka joogaa umad bariga hore dadku way kala qaybsanaayeen oo waxa weeyaan dadka waaweyn baa la ixtiraami jiray oo dhaqankeena iyo diinteenu markasta waa laba waxa weyn xiriir balaaran ka dhaxeeyo oo qofka yar qofka weyn buu ka haybaysan jiro markuu xumaan sameeyo qofka weyn uu ka dhuuman jiray uu ribaax jiro maanta wayba wada caytamayaanba lamaba kala xishoonayaba adaaba baqanayaba qofkii weyn isagaaba baqanayaba waa lagu soo dhiirinayaayo laga xishoon maayo waxa weeyaan taas marka dhibtaas dhacday ku darsoo adeero waxa soo inkaariya umuuraha aan soo taxay eel kala siraystoon afka kala xishooday in kaloona sheegay idil gabi dhamaantood aniga isku keeno adimada ku doonto ku abqaashay gacantay aniga ableydana tumayo afeeyo isku jaray ununka awlaaday ku gowracay dhibaatada haysto dhan isku keenay mid baa ii soo waariday qaadka waxa ka masuula Ethiopia khasab inuu ma soo gelin adaa ka masuula adaa doontay tahriibka hebel iyo hebel baa ka masuula dhalinyartaydu iyada halka ka yaado halka tagtay marka cidina inaga masuulaha dhibaatooyinka dhamaan inagu dhacay mid kasta inaka isku keenayo mid kasta inaka doonanay balse waan ismoogahay aafada ay haysi eedaadisteedana waxa kaga afeefta cid kale oo aabaayeedan oo tiirsha dib kasta ay haysta hebel umber oo tiiranaya oo hebel baa ka masuula balse idris leero ibtilada iyo dhibaatada intaas waxa ka sii badan u adkaysan mayne aynu qaadno ololo iska saarna ilkii awaaraha aynu jiifnee illimada ku tusay oraahdeedan weyle inta umalka raagi asaayada dareentii ogeysi dadweynaha ehelkii qoraalkii khiyaartiina gaarsi sidan ugu araarwani amiin koo la raaciyo cabsashada ilaahay aan baqaadka weeye arrinkeenu koobaad laba waa akhlaaqiyo asluub fiican oo wacan ujeedada hayaankii axdigeenu waa baris akhriskoo la xoojiyo astaanteenu waa buug aakaygeenu waa qalin qorigan sidanii AK47 ka in dadka ku leeyno bal aynu qalin u bedelano oo ka aynu isticmaalno markaas horumarka aynu baadi goobayna la gaaray aakaygeenu waa qalin aakaygeenu waa qalin masada iqrina iyadana xafilayaa inay wax badan aad waa baraarujin qiimo leh qof kasta oo muwaadinana taabanaysa in isla markaana waxaynu oran karnaa waa fariin qaali oo socota saddexda xisbi qaran ee wadanka ka jira aan Soomaaliland iyo guud ahaan xisbiyada Soomaalida leeyahay kala duwanaadaan araada soo bandhigaysa si ay bulshadu hab qabiiliga uga baxdo oo ugu gudubto hab xisaabeed iyo marka wixii kala duwan yihiin hebelna de waxa ku dooranaysa siyaasadiisa hebelna waxa kaga duwanaysa siyaasadiisa laakiin imika taas oo adeerkeen waan taageeraya ka adeerkii ka soo horjeedaysan qof khaldan markaa adeerkeen baaba saxanba baba khaldan adeerkay dhibaatadaas jirta barnaamijku maxamed wardi wuxuu ku siisiqiyaa gunti iyo gabagabadiisa kulleeyda asxaabtina halkan ay kala inala joogo waana de jecelahay baynu leenahay aboonku wayna jecel yahay waxaynu ku soo afmeeraynaa maansada gobaad maansada gobaadiyaduna waa sidaas sheegto 15 bay soo baxday 8 bishii 7 ay ahayd maansada gobaad way ka duwan tahay maansooyinkii hore waa bad maaso oo ay maasadii saddexaad noqonayso maansooyinkii hore soo akhrinaa ama safaan noqoto ama saar ha noqoto ama jiifta ha noqoto ama geeraar ha noqoto intaba horaa waxa weyn looga soo maansooday oo lama tirin karo laakiin satani waa tii saddexaad ee badda maaso ay ku jirto baddan waxa la yiraahdaa dadku magacyo kala duwan bay u yaqaanaan laakiin sidoo saaxiibkay Cali Leeya sheegay waxa la yiraahdaa badda gaariye ama hagarlaawe waxay ku socotaa ama miisaankeedu yahay saarkii duleedu soo deg heestan saarkii duleedu soo deg صح maasidii u horeysay waxa ka sameeyay awaan maxamed xaashi dhamcad gaariye ilaahay u naxariisto ilaahay naxariis janna ka waraab maasidiisa la dhaha hagarlaawe ii gali buuga taariikhdan wax ilmaami sidaan taariikhdan hadi doonin hadaan khaldanayn ayaa maasidii koobaad ahayd waxa ku xigtay maasa uu leeyahay cali sheekh maxamed cabdi ilaaye inaanu saaxiibnahay reer Suudaan ah laakiin hadda ay makaalkan jooga oo iyadana la yiraahdo hagardaamo ayaa ku xigtay maasadana tii saddexaad ayay ku noqonaysaa gobaad waa maaso amaan gabadheeda kulley waxay gabadha ku sifaynaysaa uun dhul barwaaqo deegaan wanaagsan wax badan oo
waxa weeye indhaqabatin leh oo ay leedahay sida taas deegaankaasi u qurux badan yahay iyo sida deegaankaasi u wanaagsan yahay iyo sida deegaankaas waxa weeye naftu u jeceshay inuu joogto ayaa adigana waxa weeyaan aragtidaada iyo la joogaaga intuba ay la mid yihiin waxay tiri maansadu khajilaa darteed ma u geegay suugaantii ma u wada gooyey goortii nin aan waxba haynin godadkaba midhuun ka yaqaana gabay uun dhammaan ku tilmaama baydgaabkii loo sacbeeyey golayaashii loo yeedhyeedhay garbahaas abwaan laga saaray gobolkaasi waa iga tooqay waxa galabta aan la balweeyey jaandheerta aan u goleeyey sacabkiiyo durbaanka u giijay gaawaha u soo culay caawa u godladay ammaanta daweeya gaaridii dhammaanba haweenka sababteed gayaan uga maagay afartaas calow ma gofeeyey badda gaariyan laba haaban calina waa cali iyo cali lay weeyaan dhulka oo tigaada gashaanti timahaas karfeedhi la moodo mahiigaan habeenka gudaayo mayaygii aroorta gargdaadsho geelii ilqoodha ka muuqdo geeyana duuleel ka marayso adhiguna guryaa ka fogaanin caanaha gadii biyahaasna galab iyo dharaar la helayo subag iyo gasiin ku dardhaafay gabalkii tartiib u dhacayo garow iyo berisna ka raayo jaaliyo guduudna cadceedu jihadaas galbeed ku sibaaqday cadceedu markay sii dhacayso casaan iyo ayay isku jirtay noqotaa oo jawi qurux badan markii geeli waxa weeyaan adhiguna waxa weeyaan dawaa kan soo dhawaaday guriga dushiisa la meeyo waxa weeyaan suciyaan te dusha waxa weeyaan gabadhiina waxa weeyaan ay usii diyaar garoobayso lisada waxa weeyaan xoolihii shinka badanaaba shinka dumarku lisaane odaygii halkan oo kala fadhiyo halkan wax ka karayaan oo caruurtii iyo adhiga iyaguna waxa weeyaan ka timi ay guriga fadhiyaan dawaa jawi aad u qurux badan oo waxa weeyaan indhuhu ay jeclaysanayaan inay ku nagaadaan subag iyo gasiin ku dardhaafay gabalkii tartiib u dhacayo garow iyo berisna karaayo jaaliyo guduudna cadceedu jihadaas galbeed ku sabaaqday galbadtoo dabeeta qarsoontay dayixii gawaanka iskeenay isagoo bilaa garbasaara gigadaas bannaan dhalintiina gingimtaan ciyaar dhaqameedo waqtiga barwaaqada waqtiyada kale la ismaaxlay laakiin waqtiga barwaaqada marka la isku soo caana dhamo ciyaar baatan halkaas untay qolooyinkii guurdoonka ahay la isma arka halkaas de waliba waayadii hore imanka magaaladan day wada joogta maaha la isma arki jirin inagu ma inaan soo gaarin laakiin sidaan day ku maqalnay ama aan wax weeyaan dhagta daaweyn baa la meelaan daniol ama dhaan ceel dushiisa la isugu yimaado ama xoolo dushooda ama ciyaare de sida kale la isku ma arki jirin ba marka taas ay keenaysay dhibahaysatay wala taas wacnay gingintaan ciyaar dhaqameedo dhaayaha siday goobtaasi gobaaday harraad uga biiso ayuun baad nafteeda ku goobay inta deeq u gaajatay geesta jacaylka ilaali afartaas calow ma gurfay badda gaariyan laba haaban guga oo awaara ka horay gidigood dirtii ubaxaysay qurac iyo galool isku soohmay milicdii jirkaaga gubaysay laamaha intay ku gadaantay hoostooda aad ku gamayso hurdaad macaan ku gayuni geedaha intii midhi saarta gobka iyo madheer bisbislaaday ari raacdu ay guranayso labi iyo maraaguudkoodna shimbiruhu guryo ka egleeshay heesaha kasoo gudbinayso goodirka iyo dameer dibadeedka goray iyo biciid iyo sakaaro gari iyo atoor naaxnaaxay garanuu korkeed subkanayso goonyaha tartiib daaqayso gidigood dhammaanba ugaadhu geestaad jaleecdaba joogto dhaayaha siday goobtaasi gobaaday harraad uga biiso ayuunbaad nafteyda ku goobay indha deeq u gaaja tirta ay geestaa jacaylka ilaali afartaas calow ma gorfeeyey badda gaariyan laba haaban guhaadow midaan sheegaayo kuma aha bilaash geeraarku waa gabadh dhamaystiran maandhe guhaad cabdigahir guhaadkaanuu noqon karaa laakiinse ninkan aan la hadlayay baan isaga mar labaad leeyahay war inantaas inantan sheegayo kuma aha bilaash geeraarku waa gabadh dhamaystiran maandhe gobannimo ilaah ku manaystay godolool dhammaanka ilaashi garashiyo dulqaad dhaxal siiyey diin iyo garaadu hibeeyey weligeed miskiin ma guhaadin ganafkii afkaasu ma taagin gaajiya harraad kuma eegin jaarkii tolkeedna ma goynin dhibaatiyo xumaanu ma geysan gardarriya nami ma taqaano eebbana xaqii ma gafayso dikri baa u gaadhay nafteeda soonkiiyo salaadka ma goysa gacmahaas kitaabka ma saarto inkastoon guyaalu samraayey gogol iyo furaashu ilaabay gidigood hablii arki waayey cuntadii afkaa gelin waayey 100 jeer u guura caraabay goodii abeesba u jiiday gaaniyo libaaxula jaaray gaar iyo bannaan u jeclaystay fikirkeedu gooni ahaaday caawa hadday gacalkaytay guulow adaa mahadaale alle lehe maansadaas waa maanso inta badan qiimo leh siday habdhaca u sameynaysaana ay tahay hab dhagaha aada u cunayo isla markaa qofku la sii raacayo sida laxan bay yidhahdaan markaynu malaha sida wax loo qaado aada baad mahadsan tahay abwaan sida qiimaha le aada wareysiga nooga soo ajiibtay intaynaan barnaamijka ka bixin waxaad leedahay fursada qaali ah kuma odhan karayaa jeceshahay ood
halkan ka salaamisahay lehelkii iyo asxaabtii iyo ardaydii inta taxasuusan karto wallahi horta waa godob marka la yiraahdo hebel u yaad salaamaysaa aadiya oo dee hadhowtoole dadkii markay badan yihiin ana jeceshaydaasaan iska ilaalina anna maxaad ilowday baa ka bilaabmi doonta ala yidhi idinka aad u yaqaanay qolooyinkiina saxaafadda marka saa kamarada qofka loogu qabto u naxaa kadibna hadalku iska kala dhex tuuraa waxaad arkaysaa dadkan iidaha badanka qofkiiyo xasuusan 100 kun oo qof ayuunbaa mikrofoonka lagu soo dhaweynaya waxaa la odhanayaa salaamaysaa wada ilaabiyo waxaan salaamayaa 3 jeer waxaan salaamay markuu soo celin boodhayo waxaan salaamayaa inaan kamarada iga duubiyo adoo iga labadiina suma salaamay macalweydii bibi ilaabiyo saamaynta ma kamarada irsiina iyo de qofkii waa ka naxay hadaan la qabsanin ka soo irjeysa aad dadka gaadh waxaan salaamayaa horta marka koobaad hooyada qadan xaaj maxamed xandulle allaifka iyo akhriba ku sharfee allah yaslimaka hooyo waxaan salaamayaa aba Harun Ibrahim Jaamac Harun Ibrahim waxaan leeyahay allah yaslimaka waxaan salaamayaa dhammaan adeeraday abtiyaday idooyinkay habriyarahay dhammaan ehelka sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabtayda magaalada Hargeysa iyo kuwii aan jaamacadaha wada baxnay qurbaha kala jooga intaan ka xasuusto waxaan isna si gaar ah u salaamayaa walaalkay Xuseen Cumar Muuse waxaan hortankii darsiyo saaxiibadaadina inuu wada salaam ku tagi doono waan kala qaybinayaa waxaan salaamayaa Xuseen Cumar Muuse walaalkay isagu markaan asxaabta u soo noqdo waxaan salaamayaa qolooyinka qurbaha ku jira ayaaba malaada ugu sii badanee saaxiibkay Yaasiin Ismaan Cabdi Miigaag oo Finland jooga waxaan salaamayaa Cabdiraxmaan Ismaan Maxamed oo isna Qaahiro jooga waxaan salaamayaa Cabdisalaam Jaamac Shaayib oo isna Suudaan jooga qolooyinka Kampala Idris Aadan Yuusuf Lee Naasir Ciirle Cabshukuur Lehe Xamse Lehe Mukhtaar Lehe Cabdisamed Mustafa Lehe waa badan yihiin lama koobi karo idilkood reer Kampala iyagana salaan qiimeeyo qaayale oo tii wada joogitaanka iyo saaxiibtinimada ah ayaan iyagana gaarsiinaya reerkiisana iyagana dee lagama goyoonayo marka waxaan ku saafmeeyay halkii qolooyinkii kamarada adigana waan ku salaamayaa waxaan mar labaad xasuusinayaa asxaabta deynaan maaragtay had iyo jeer fanka iyo saxaafadu waa walaalo tusaalana waxaan uga dhigi karnaa hiba Harun Ibrahim iyo wardi Harun Ibrahim waa laba awlaad oo walaalaa aad baan u salaamaya walaashay saaxiibaday waxa la yahay iyaguna waxa weeyaan hiba Harun Ibrahim oo Harun Ibrahim ayaan Harun Ibrahim dhamaanto Anisa Leila Amina Mukhtaar Abdulqaadir ilmaha Harun Ibrahim lagama goyon karo iyaga wada labaatameeya iyaga wada salaamaya aad baan u salaamaya Harun Ibrahim laftooda iyo caruurahooda badi aad iyo macasiidiyada daawadayaal sidaan hore idinku sheegay waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka waxaan aad ugu mahadnaqayaa martida barnaamijka Maxamed Wardi Harun Ibrahim sida qiimaha iyo qaayaha leh uu barnaamijka inoogu soo ixtiraamay isla markaana uu halkan noogala damaashaaday murtidiisii qiimaha badnayd ee aadka u tayada cuslayd uu halkan inoogala qayb qaatay waxa kale oo aad u salaamayaa daawadayaashayda qiimaha leh ee iyagu had iyo jeeraale waqtiga iyo juhdiga geliyay siday u daawan lahaayeen barnaamijkan aan soo saaraha ka ahay وأنا هذا جريسة كمردي محيدين مستفاد انتهر وفرسمدي محمد عبد إبراهيم برنامج حقنتين كل مدونه أنا جاي يوم محمد وردي هارون إبراهيم يبهذا هون وضعنا ذا قلق بقاته وحنا كلها فينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إسارك دنبوحي صلاة